ma tahay qof rabo inuu miisaankiisa sare u qaado ma tahay qof ee dadku cayaan mar walba qaliiro ama qaliire ma tahay qof rabo inuu jirkiisa boodigiisa balance ka dhigo ma tahay qof rabo inuu jirkiisa quruxdiisa bilicdiisa arko haddii ay dadka lafa kugu cayaan oo mar walba ay dhahaan qaliiri ama qambabow muuqaalkaaga waa ay la dhameyso waxaan ka hadlaynaa 7 cunto oo haddaa isticmaasha miisaankaaga sare u qaad maayo cunnada koowaad fiishka ama kalluun kalluunka marka muxuu ii faa'iideynaa kalluunka wuxuu ku faa'iideynaa hormoonada jirkaaga ku jiro oo dhiigaamanka soo saarayo oo jirkaaga rabo in miisaanka sare u qaado hormoono ka shaqeynaya jir in miisaanka sare u qaadmo hormoonada digestive systemka oo jirkaaga sare u qaadayo wuxuu sameynaa kalluunka uu badinaa hormoonkaaga uu ziyaadinaa hormoonkaaga markuu ziyaadiyo jirkaaga marka wuxuu helaa hormoonka inuu active yahay dhaqaaq badan oo sameynaa hormoonkaaga maadaama oo dhiigaamanka ama raashinka bacriminaya aa heshay wuxuu bilaabaa marka jirkaaga inuu increase noqdo miisaankaaga ziyaado cunnada labaad avokaadhaha inta badan waxay ka samaysan tahay waxyaaba loo yaqaano fatis foods yani raashinka waxaa ku jiro waxyaaba fata ku jiro cholesterol ku jiro cholesterolka marka muxuu ka caawinaa cholesterolka marka mid natural waay saliida ku jiro avokaadhaha saliidan ku jirto marka waxay ka caawinaya jirkaaga inay bacrimiso murqahaaga avokaadhaha inta badan maxaa loo isticmaala murqay bacrimisaa murqahaaga bacrimismaa murqahaaga markuu bacrimis murqahaaga weynaanaya isbedela kugu dhacaya marka jirkaaga miisaana kordhaya isla marka waxaa dareemaya marka inuu miisaan kugu kordhay oo jirkaaga kordhay oo jirkaaga wax kusoo darsamay dan waxaa dareemaya marka inuu jirkaaga wax kusoo darsamay isticmaal badi avokaadhaha inta badan cabitaan ahaan u isticmaal cabitaan ahaan soo gado shiido cab haddaa rabta inuu miisaan jirkaaga ku kordho nambar 3 eggs waxaa isticmaashaa ukunta midka dabiiciga ugu fiican soo gado isticmaal biyo ku karso ama caadi u dubo bardhee 2 xabo ukun isticmaal maalinkii haddaa awoodid jiima aadaa bilaa qaadaa jirkaaga inuu miisaan kordha artaa qaliiro ama qaliiro lagu wacaayo ukuntaas isticmaal borotiin ku jira jirkaaga anfacayo cunnada afaraad waxaa isticmaasha wax loo yaqaano cabbage soo gado haddii wadanka meesha aad joogta cabbage olin waxyaabaha cagaaran isticmaal cunnooyinka cagaar waa badan yihiin waxaa kamid ah koosta kamid waxaa kamid ah bukuriya kamid waxaa kamid ah ansalata kamid waxaa kamid ah basal baara kamid waxaasoo dhan cunno cagaaran waay jirkaaga u baahan tahay waxaa cunnada cagaar loo yeelaa cunnada cagaar inta badan waxay kubciyaan digestive systemkaaga organa systemkaas loo yaqaanay ka shaqeynayaan waxay siinayaan marka relaxation oo dhiigaamanka oo ka kooban yahay waxaa u baahan mindheerahaaga isbedela ku dhacaya jirkaaga isla markii si balance iskula koraa marka waxaa isticmaashaa cunnooyinkaas cagaaran aad uu muhiim kugu yahay cunnada shanaad bataatiga aad u raadi bataatiga borotiina ku jiro waxaa isticmaashaa bataati macaan barandho maxog saddexdaasa ugu fiican waxaa ugu sii riijsan maxog waa midka ugu badan ee borotiin laga helo oo jirka biniaadanka galo maxogana waxaa aad looga helaa soomaaliya wadanka labaad oo laga isticmaalo uganda waay laakiin wadanka adduunka keliya maxoga laga isticmaalo waxaa loo yaqaana soomaaliya quantity ugu badan borotiin badana ku jiro marka maxoga soo gado biyo ku karso galabtii qadab u baahan faakiyeysi ka dhigo waa fiiqe waa jarjarne waa cune dadka qaar hadda cambuule ku cunaan soo karsadaan cambuule ku cunaan macaan waay gabdhahaas hadda maxoga lagu soo koriyo isticmaale way ka dhow yihiin way ka nugul yihiin inay uur qaadaan gabdhaha aanan isticmaalin digirta iyo maxoga sababtoo ah labadaas maado waa 2 maado oo la shaqeeyo xubinta loo yaqaan balasantaha ama raximka gabadha inuu uur qaado cunug xambaarda u baahan tahay oo aad raadinaysid magaciisa maxogaasa isticmaale ama waxaa isticmaale masagada labadaas badinayaan marka batatoskaas aad u badso miisaankaaga waa kordhaa miisaanka kor u qaadmaa midka 6aad waxaa loo yaqaanaa apple tufaax haddaad tufaax heli kartid habeenkii 1 xabo ku tuuro isbuucii 3 xabo 4 xabo way kaa badan tahay asigana appleka jirkaaga u fiican yahay midka 7aad waxaa loo yaqaanaa grape fruits waa taqaanin liin balbeelmada liin oranjada liimooyinkaas oo dhan waxay u fiican yihiin fitamiin ay ku siinayaan fitamiin C jirkaaga kobcinayaan haddaa isticmaal jirkaaga kordhaya marka cunnooyinkan aa sheegan dhan haddaa isticmaasho jirkaaga wuu kordhaa laakiin maxaa lagaa rabaa qaab balance maadaama aa cunnooyinkaas aa isticmaashay bardhey waxaa lagaa rabaa 2 waqti morning laga bilaabo 8 ilaa 11 waxaa loo yaqaanaa morning aa lahaa
8 ilaa 11 waxaa isticmaashaa inay cabtid 1 litir biyo laga bilaabo 3 ilaa 5 pm 3 ilaa 5 pm waxaa isticmaashaa 1 litir biyo yani morning 8 am ilaa 11 am waxaa isticmaashaa 1 litir biyo galabtiina 3 pm ilaa 4 pm ama ilaa 5 pm waxaa isticmaashaa 1 litir biyo labadaas waqti maxaa loo isticmaalaa systemka banayni waa dhaqe subaxii waa quraacatay morningkii markii la gaaro 9 10 markii la gaaro kal raashin lama cuno biyaa cabe 1 litir biyaa cabe biyaa waa inuu jadwal kuu leeyahay inaa ciishada u baahan tahay 1 litir biyaa isticmaali baa cabe haddana markaa qadiisid 1 saac markay qadada kasoo wareegato 1 litir biyaa cabe yani casirka markii laga soo baxo 1 litir biyaa cabe marka 1 litir biyaa cabta jirkaa waa isfurfuraa raashinkaasna waa cuntaa waxaa kuu ballan qaadaa inaad naqan doonto jiimiste qof oo murqo dhisan oo jirkiis dhisan inaad naqan doonto waa kuu ballan qaadaa عشر كان انت سكسو قبل قبينا وانا ما سنت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته